barnaamijkeenna xogta daasoon waxaanu ku soo gudbinaynaa waxa dhacaya marka aad dhegtaada ku dhibciso saliidda saytuunka. dhegaha iyo xanuunadoodu waxay xilligan casriga ah noqdeen kuwo aad loo hadalayo iyadoo ay ka cabanayaan dhegaha dadka waaweyn iyo kuwa yaryariba, gaar ahaanna ay xanuunada dheguhu waxyeeleeyaan ubadka. dheguhu waxay la kulmaan fayrasyo iyo bakteeriya kala duwan kuwaas oo ku sababa xanuuno, iyadoo bukaanka dheguhu dusha sare ee dhegta iyo gudahaba noqon karo. haddaba maxaa la yeelayaa haddii xanuunka dhegahaagu noqdo gudaha hoose ee dhegta? sidee baad se u nadiifin kartaa dhegahaaga si aad uga hortagto inay cudurro kaa haleelaan oo aad ka baaqsato in cisbitaallada qalliinka lagu geeyo? dhegahaaga iyo shaqadooda maqalkuna ay noqdaan kuwo xilliga dheer la isku hallayn karo, iyadoo dhukayga dhegaha ay culimo badan oo dhanka caafimaadkii ka dayriyeen, halka qaar kalena inoo soo qadimeen in dhukayga dheguhu yahay shay faa'iido ballaaran u leh aadamaha, kaasoo dhegaha ka celiya xasharaadka qaarkood. laakiin waxay kaloo culimmadaasi inoo sheegayaan in haddii uu buto dhukaygu uu dhegaha gufayn karo oo maqalkaaguna hoosu dhacayo. haddaba waxaa waajiba in dhegaha la sifeeyo iyadoo la isticmaalayo suufka dhegaha, inkastoo ay taasi tahay caado aan dadka qaar la dhacsanayn, maadaama aanay ahayn shay joojinaya soo duxashada dhukayga oo ah dheecaan ilimaqabate ah oo isu soo ururay, kaasoo ay soo daayaan daboolada sare ee dheguhu. daawada rasmiga ee nadiifinta dheguhu ee lagula talinayaa waa adigoo dhegta gudaheeda ku dhibciya saliidda saytuunka, taasoo awood u leh inay kaa soo xaadho dhukayga islamarkaana xalliso dhibaatadii uu kugu sababayey. waana dariiqo aan qiimo badan kugu kacaynin oo aad gurigaaga ku diyaarinayso adiga oo dhibic saliidda saytuunka ah oo nadiifa ku dhibciya dhegta aad ka cabanayso, una daaya muddo 5 daqiiqa. kadibna waxaa dhegta ka soo baxaya dhukaygii oo dareere isu rogay, waxaana aad ku nadiifisaa oo ku masaxdaa masar yar oo nadiifa, adiga oo sidaa ku wadaya toddobaadkiiba hal mar intii muddo ilaa uu kaa suulo cuncunka iyo dhukayga dhegtaada gudaheeda.